الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أحبائي في الله، وتحنيه نوسو سعودي kuna saabsanaa al-usra saciida, qoyska wanaagsan iyo sidii loo dhisi lahaa qoysaskii uu nabi moxamed noo tilmaamay sala allahu calayhi wasalam, qoysaskii ilaahay kitaabkiisa qur'aanka a noogu sharxay subxaanahu jalla fii culaah, xaasaskii ay dhaqan geliyeen saxaabadii ka soo qalinjabisay madrasatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, qoysaskii ay sii faafiyeen culummadii iyo akhyaartii dhaxal u qaadatay nabiga wuxuu ka tegey sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadu wixii ay faafiyeen. xalaqadani waa xalaqadii labaad, waxaan ugu magac daray awalu leylatin, habeenkii ugu horreysay oo ay lamaano guri ku kulmaan ayay caawa ku saabsan tahay muxaadaradeennu, ama uu liqaageennan uu ku saabsan yahay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. horey waxaan ooga soo sheekaynay yaan guursadaa, waxaannu soo gaadhsiinay ilaa aan aroos ka dhigno, oo aannu ka soo hadallay qaabka ugu fiican ee aroos loo dhigi karo iyo waxyaabaha aan la oggolayn. meherkii baa noo dhacay. awalan markuu meherku dhaco wuxuu nabigeennuna baray sala allahu calayhi wasalama duco aan akhrisanayno. waxaan oga jeedaa, ama waxaan doonayaa in aan dhaho, reerka cusub ee biidni illaahi tabaaraka wa tacaala doonayaa inay qoysas dhistaan iyo qoysaskii horay isu soo qabay ee ducadani ay ka tagtay, dhammaantoodba risaaladu iyo muxaadaradu way ku socotaa, aniga ka mid a. mar walbaba inaan wax cusboonaysiinno waa shayna laga doonayo. nabigu wuxuuna baray inaan duco ugu ducayno labada qof ee isguursatay. bal ducadaa ila fiiriya oo ducadaa ila eega. marka u horraysaba waxaan ugu ducaynaynaa sida asxaabu sunan ila annasaa'iyu marka laga reeba ay soo gudbiyeen, sheekh albaanina uu saxiixinayo, asalkuna uu saxiixaynka ku yaallo. nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuuna baray inaannu dhahno baaraka allahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fii khayr. kelimaadkii rasuulkeenna afkiisa ka soo baxay sala allahu calayhi wasalam ee ku aadanaa lamaanahan cusub, kelimaadkaasay noqdeen. talow kelimaadkan macaanida ay tilmaamayaan maxay tahay yaa tura?
anigoo kale iyo dadka ila midka ah macaanida ducadan iyo kuwa soo socda ku jira ma la soo bixi karaan fiqigooda ma gaadhi karaan ilaa ma aha laakiin kollaba culumu alla u soo saari doonaa mawduucan kala dhigdhigta biidni illaah waxaan reerka ugu ducaynaynaa barako waa barako dhinac walba ah waa barako xagga caqliga ah waa barako xagga xoolaha ah waa barako xagga sariirta ah waa barako xagga dabeecadda iyo akhlaaqda ah waa barako xagga dhacaanka ah waa barako xagga dhididkooda ah waa barako xagga candhuuftooda ah waa barako xagga raashinkooda ah waa barako labada qaraabay ka kala yimaadeen ah waa barako deriska ay yeelan doonaan waa barako xagga cilmiga ah xagga cilmiga waa barako xagga hurdada waa barako hadday isla joogaan waa barako hadday kala maqan yihiin shay walba oo bini aadamka wanaag iyo raaxa u noqda ayaa reerka loogu ducaynayaa ilaahay inuu ku barakeeyo oo barakadaas iyo tabaaraka wa tacaala taasi horta waa inaan ogaanaa marka koowaad allaha kuu barakeeya gabadhan dabeecaddeeda wanaagsan allaha ku tuso duco kalaan arki doonaa gabadh yahay ninkan allaha kuu barakeeyo dabeecaddiisa teeda wanaagsanna allaha ku tuso allaha isu kii barakeeya labadiinnaba haddii aad kulmaysaan kelimadiinnu khayr ha noqoto wadatashigiinnu khayr ha noqdo noloshiinna oo dhan khayr ha noqoto cibaadadiinnu cibaado khayr oo xaqa waafaqsan ha noqoto horta ducadaasaa marka koowaad reerka loogu ducaynayaa bal dhabdhaha oo bal intaan la isguursanin ducooyinkan ha la xifdiyo ha la xifdiyo ma ahane macnahooda ha la dhuuxo ha la dhuuxa keliya ma ahane ha la dhaqan geliyo aad waxaan u jeclaan lahaa kelimaadkan aanu meesha ka jeedinno inayna noqonin kelimaad la dhagaysto inayna noqonin kelimaad markay dhammaato la yidhaahdo alla kelimo fiican bay ahayd ee waxaan doonaynaa kelimo nolosheenna qayb ka noqota inay noqoto kelimo la dhaqan geliyo inay noqoto manhaj aan ku soconnana noo noqota waxaan isleeyahay qoyska tallaabo noloshani oo la socda waxaan isleeyahay qoys wanaagsan buu noqonayaa ma isweydiiseen inta ay culummadu ka hadlaan qoys wanaagsan haddana guryaheennu ay sii gubanayaan ma taqaanaan li'anna lama dhaqan gelinayo inta la faraxsan yahay waa la isku faraxsan yahay laakiin marka la cadhoodo weeye arrintu markay timaado marka la iskhilaafo weeye arrintu markay timaado marka sabarka dulqaadka tanaasulka raxmadda la doonayo waa marka marka la isku fiican yahay nin walba waa ka qurux badan yahay wax walba waa ka idgoon yahay wax walba waa ka qurux badan yahay wax walba waa ka fiican yahay wax walba way ka cunta macaantahay gabadhu islaan kasta laakiin markii la isku xanaaqo huna halkaa weeye ninka ragga meesha la raba inuu ka muuqdo gabadha qiimaha badan meesha la doonayo inay ka muuqato waa halkaa weeye ducadaasi waa ducada koobaad weeye oo la doonayo in laba duco kalaa noo hadhay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaanaad u jeclaan lahaa kutubta inta badan aan islaahay in la aqriyo oo qaybo badan laga aqriyo maalin dhoweydna waxbaa idinka tusay inaan mar laba idinka tuso wax kitaabka aan gacanta ku hayo oon u malaynayo inaad fiidiyowga ka arkaysaan ama ka arki doontaan waxaa la yidhaahdaa xataa laa yamuuta alxubbu
si uusan jacaylku u dhimanin. inta uusan jacaylku dhimanin kitaabka wuxuu ka hadlayaa intaa la eg labada qoys siday jacaylkooda u waraabin lahaayeen. aan mid kale idin tuso. waxaana oga jeedaa qofka luqada carabiga garan kara ama luqaad kaloo lagu turjumay raadsan kara inuu raadsado. kitaabka labaadan gacanta ku hayo waxaa la yidhaahdaa sideen u dhisnaa guri wanaagsan. kii hore waxaa iska lahaa gabadh la yidhaahda iihaab fu'aad baa iska lahayd. kanna waxaa iska leh doctor rida nin la yidhaahdo ayaa risaaladana iska leh. risaaladaas kaleen gacanta ku hayo waxaa la yidhaahdaa zahratu طariiqi manaabiri nuur ayaa la yidhaahdaa. sida uu guryaheennu ay u noqdaan minbaro nuur ka kacayo oo iftiimaya ayuu walaalkaana isku dayey. waana gabadh la yidhaahda shiriin muniir gabadh la yidhaahda ayaa qortay. kitaabkaa aan gacanta ku hayo aad u weyn oo mujallad aad u weyna qisasu nisaa'iya can ilxayaati zawjiya la yidhaahdaa. waxaad ka helaysaan qasas aad u badan oo rajaynaya inay idin cajabiso biidnillahi tabaaraka wa tacaala. waana kutubta aan xalaqaadkeennan intaan wadno aan wax ka qaadan doonno. kitaabka aan gacanta ku hayo magaciisa waxaa la yidhaahdaa asbaabu dawaami almaxabbati bayna azawjayn. labada isqabtaa sidii uu jacaylkoodu u sii daa'imi lahaa ayuu ka hadlayaa. nin waxaa qoray cabdilcaali la yidhaahdo oo liwaa ah. kitaabkaa kaleen gacanta ku hayo eed shaashada ka arki doontaan ama aad ka aragtaan waxaa la yidhaahdaa mawsuucatu sacaada azawjiya. liibaanta iyo guusha lamaanaha meesha ay ka heli lahaayeen. kitaabka aan gacanta ku hayo ama risaalada kani waxaa qoray kii hore doctor moxamed cabdilxaliim xaamid in la yidhahda baa qoray. culammada masar bay u badan yihiin. kitaabkani waa risaalo cajiib ah. mawaadiicda aan ka hadli doonnana qayb ka mida baan cinwaan oga dhigi doonnaa. kitaabkan waxaa la yidhaahdaa fannu tacaamuli maca azawji alcaniid wazawja alcaniida. talow say u wada dhaqmi karaan lamaano madax adag. ninkana goonidiisa ayuu yahay budo gooni u tuman. gabadhuna goonideeday u tahay budo gooni u tuman. ana amiirun wa anta amiirun man yasuuqu alximaar. noloshu halkaasay maraysaa. ninka madaxa adag iyo gabadha madaxa adag talow madaxooda see loo jilciyaa. risaaladaa risaalo qiimo badan weeye. waxaa qoray axlaa farax baa la yidhaahdaa. nin carruurtayda mucallim u ahaa 2005 ayaa qoray oo magaciisa la yidhaahdo moxamed mutawalli caraabi ayaa l kii hore doctor yaasir nasr ayaa qoray. kitaabka aan gacanta ku hayo arkaysaa ninka aadka u xanaaqsan iyo gabadha madaxa hoos u foorarisay. kitaabka waxaa la yidhaahdaa citaabu laswaaj. talow labada qof say u wada hadli karaan oo say isu canaanan karaan ama siday xal u gaari karaan. ma in laysku qayliyaa mise waa in si wanaagsan loo wada hadlo. wakhtigeedaan ka hadli doonaa. kitaabka aan gacanta ku hayo eed arkaysaan ama arki doontaan waxaa la yidhahdaa ascid nafsaka wa ascid aakhariin. naftaadana liibaanta u raadi oo sacaado u raadi. cidda kula nool oo loo jeedo xaaskaagana sacaado inay ku noolaato ka shaqee. kitaabkii hore ibraahim latiifi baa qoray. kanna waxaa la yidhahdaa doctor xasaan ayaa qorin masri oo macruuf oo la yaqaano weyo kutub aad u badan leh ayaa qoray. kitaabkaas aan gacanta ku hayo risaaladaasi waxaa la yidhaahdaa ilaa xabiibayni. labada isjecel ayaa la yidhaahdaa. waa kitaab romansi oo aad u qiimo badan oo wax badan ka hadlaya. kariim shaadali ninka la yidhahdaa qoro kutub badan
ayuu mawduuca kaga hadlaa. kitaabkan aan ugu dambeeya waa badan yihiine aan ku soo koobayo waxaan u malaynayaa 319 safxadood wuxuu ka hadlayaa qaabka sariirta iyo aadaabta sariirta iyo ninka waxa laga dooni iyo maxaa bannaan iyo maxaan bannaanayn iyo nin walba ama qof walba siduu xaqiisa sariirta u heli lahaa ayuu ka hadlayaa. waxaan oga jeeday kutubtaasoo dhan aan rabay inaan idinku sheego yacni waxaa weeyaan markii mawduuca laga hadlaya wax iska soo degaya maaha, waa cilmi dheer oy culummadu juhdi ku bixiyeen. kow waxaa ka ah laba ka ah qur'aanka iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. intaa haddii aan ka tago gabadhii markii iyo wiilkii laysu mehriyo oo baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa bikhayr la yidhaahdo gurigaa layskugu keenaa. waxaan doonayaa labada qof markii guriga layskugu keeno waxay samayn lahaayeen. qisada waxaa noo soo hal qisaan ku bilaabayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. awalan waxaan leenahay oon ciwaan ooga dhigaynaa guriga markay isugu imaadaan yaynan isku soo boodin, ha tartiibsadeenoo ha isdejiyeen. nicam badan baa u baahan in ilaahay loo celiyo. horta isbarashadan soo socoto bal eeg, aduse maxaa samaysay? runta markaad sheegto maxaa samaysay markii ninka guriga lagugu keenay, ama ninku muxuu sameeyey? sida wanaagsanse waa sidaas soo socota, inay labada qof isbartaan oo mid walba midka kale tacriif iyo aqoonsi ziyaado ah oo meesha lagala kulmo. wuxuu leeyahay axadu salaf, culammadii wanwanaagsanayd ee salafka ahayd ee naga horraysay, mid ka mida wuxuu leeyahay asagoo saaxiibkii u sheekaynaya, raggu way sheekaystaane sida ay dumarkuba u sheekaystaane, wuxuu ku yidhi 20 sano oo aan xaaskayga qabay weligay ooma cadhoonin, ayadana iima cadhoonin. ninkii saaxiibka ahaa kelimadaa wuu la tacajubay. xusuusta hadda innaga wiigag baa laysqabaa, bilooyin baa laysqabaa, cadhada iyo xanaaquna sankayba ka saaran tahay. laakiin haddaad garan doontaan ninkan qiimaha badan ee salafka ka midihi qisada uu noo warinayo si waddaduu u maray iyo innagu waddadaanu marnay. ninkii loo sheegaya wuu tacajubay oo wuu la yaabay oo su'aal cajiibuu weydiiyo wuxuu yidhi kayf, bal niyoo arrinkaasi cilmi baan ooga baahanahay. hadda laftiinnu ama aniga laftaydu soo ma wanaagsano inaan cilmigaa aan baranno. ninkii marka wuxuu yidhi habeenkii ugu horraysay ee xaaska guriga la igu soo geliyey ee xaaska la ii keenay, sida caadadaba ragga a gacanta ayaan ku taagay gabadhii. mar alla markaan gacanta u taagay ayay gabadhii waxay tidhi yaa umaama calaa rislika, yaa umaama, umaamow bal isdeji, yaa abaa umaama bal xoogaa isdeji, meesha aad fadhido bal fadhi. laakiin waxaa intaa ka horraysay xagee buu fadhiyaa? wuxuu fadhiyaa meeshii uu ku tukaday 2 ragcadood. mar alla markii guriga layskugu keenay layskuma boodine waxaa weeye 2 ragcadood buu u istaagay. shukran lilaahi tabaaraka wa tacaala. gabadhii buu saa u eegay, markaasuu wuxuu ku qiyaasay xuurutiin, xuurulciintii adduunyada xuurutiin ayuu ku qiyaasay. markaasuu yidhi ma gabadhan buu ilaahay kuu qoray jamaalkan iyo quruxdun leh, miyuu adiga ilaahay gacanta kuu soo geliyey oo caawa xalaal kuu ah oo kelimadii ilaahay lagugu xalaaleeyey? allahu akbar. arrintaasi shukrin bay mudan tahay sow maaha? 2 ragcadood buu u istaagay, se gabadhina 2 ragcadood labadiibay ku xidhatay asagiina. mar alla markii uu salaada ka baxay assalaamu calaykum waraxmatullah, assalaamu calaykum waraxmatullah markuu yidhi, se gabadhii oo gadaashiisa taagan oo ayadana salaadii ka baxday unbuu arkay. markuu intaa sameeyey weeye wuxuu gacanta ku soo taagayo.
marka khudbada koobaad waa maxay sida wanaagsan laba ragcadood inaad tukato reerkii baa la doonayaa in ilaahay lagu xidho reerkii baa la doonayaa in ilaahay loo baryo ihdina asiraata almustaqiim ayaad aqriyaysaa xaaskii adoon taabanin taasoo macnaheedu ay tahay ilaahay inuu hanuun ku siiyo oo gabadhana ilaahay kuu hanuuniyo labadiinnaba inay raxmad idinku soo degto waxay ka dhigan tahay iyadoo macnaheedu tahay ilaahayow abuurkii horeba khayr baan ku bilaabay ilaahayow adigaan kugu shukriyey ilaahayow reerkayga ii hagaaji ilaahayow sujuuddaan kugu baryey ilaahayow rukuucdaan kugu baryey ilaahayow atixiyaadkaan kugu baryey gurigayga cibaadaan ku bilaabay gurigayga salaad baan ku bilaabay gurigayga jacaylkaagaan ku bilaabay gurigayga jacaylka nebi moxamed baan ku bilaabay calayhi asalaatu wassalaam rabbiyow arrintaa haygu hoojinin horta risaaladu ay salaadu tilmaamayso waa mid ah gabadhuna waa sidii oo kale billaahi calaykum dadka i dhegaysanaya waxaan maqlaya 200 weeye haddaan ka maqlaya markii la galay qolka 200 iyo inta soo geli doonta haddoo kun gaadhaysay ka badan ilaahay baa idinku dhaariye cidda waddadaas samaysay ee reerkeeda shukrigaasi arooskii ku soo dhigtay oon ilaahay ka soo cadhaysiinin guriga markii laysku keenina qaabka u martay waa ayo hadday jiraan sooma yaro maxaanu gadaal ooga cabaadaynaa marka maxaan la dhawaaqaynaa haddaanan annagu sunnadii nabigi iyo salafkii haddaanan annagu aan waddadeedii aanan marin oo aan arooskii ilaahay kaga cadhaysiinay oo aan gurigii markii layskugu yimidna aan la garanayninba aadaab marka horeba aadaab aan la garanaynin soomaali badan siday geela u raaci jireen oo ay looda u raaci jireen oo ay adhiga u raaci jireen oo loo arkayo uun dibigan iyo sacan iyo dibi iyo ritigan iyo hashan iyo wankan iyo laxdan iyo orgigan iyo ridan ayaa laga yaabaa inuusan macno kalaba weligiiba inuusan aqrisanin baa laga yaabaa isdeji 2 ragcadood tuko gacanta markuu u soo taagay waatan gabadhii tiri calaa rislika bal gabadhaasay u barakaysan tahay fiiri bal waxa yaabka badan waxay tidhi alxamdu lilah waasalaatu wassalaamu calaa rasuuli illaah calayhi asalaatu wassalaam ini imra'atun gariibatun laa cilma lii biakhlaaqika fabayin lii maa tuxibu faaatiih wamaa takrahu faatrukuh ثuma qaalat aquulu qawlii haada wa astagfiru allaha lii walak gabadhii sidii imaam khudbo aqrinaya oo mimbar saaran ayay xaaladdaasi bilowday allahu akbar ilaahay ha kuu naxariisto allahu akbar wadda cajiiba baad noo sheegtay allahu akbar caqli waxaa tahay haweenay midda ugu caqli badan allahu akbar waxaa tahay haweenay midda ugu xikmad badan allahu akbar waxaa tahay haweenay midda ugu cibaado badan allahu akbar ku dayasho ayaad mudan tahay jazaaki allahu khayran canna wa cani lmuslimiina khayra aljazaa ha maqleen gaalada iyo kuwa romansiga iyo waxa beenbeenta ah ee qiimaha layn wareejiya bal u fiirsada islaamku qaabka wax u dhisayo ninkii asagaa wuxuu yidhi saaxiibkiibuu u sheekaynayaaye gabadhii waxay ii dhibaato gelisay oo igu qasabtay anna inaan khudbo bilaabo xaaladdaas ayada ah ee meel khudbaba aan ahayn gabadhii ninkii wuxuu yidhi alxamdu lilah wa usallii wa usallimu cala annabiyi wa aalihi wa saxbih amaa bacd wuxuu ku yidhi fa inaki qulti kalaaman in habata calayhi in haddaad ku sugnaato qodobka ah yakun laki xaduk wuxuu ku yidhi gabadhay eray waxaad ku dhawaaqday haddii aad ka rumayso oo aad kaga dhabayso aad nasiib weyn ku gaadhayso haddaase ka tagtana xujo uu kugu noqonayo qodobkaa wuxuu isoo xusuusiyey
da'yarteenna iyo innaga waaweynba lafteenna markaan ishukaansanayno been baa laysu sheegaa waxaadan ahayn baad sheegi gabadhii waxay leedahay waxaan ahay gaariyad gacmaheeduba malabku uu ka daadanayo cuntadayduba waa daawo waa lagu caafimaadaa gogashaydana daqsiga guriga soo gala 3 sanoo xadhiga baan u jaraa carafta gurigaygana deriskaa laga soo carfiyaa maxaad iga taqaanaa halkaasay gabadhi ka baxday ama adiga soo ma aha ma ninkaygii baan yan ku hadal celin karaa raalliyo ma maqli jirta ehlu janno ah raalliyadaasaan ahay ninkii wuxuu leeyahay rag ninkii lagala bixi lahaa baan ahay raganimada iyo caqliga iyo jacaylka iyo qaabkan dumarka kaaga saramarin doono saan kugu naxariisan doono sidaan suuqa kuula xaragoon doono sida aan ilaahay isula caabudi doono halkaasaa la isla maraa marka haddii laga rumayn lahaa ma run noqon lahayd goorta guriga la imaadoy dhab noqon lahayd maanta meesha aanu gaadhnay ma gaari lahayn jawaabtu waa maya laakiin ha dhowto wax kalaa soo baxa ha dhowto wax kaloo yaab badan ayuu qof walba kala soo baxaa sakiin af badan oo midkan kale jeexjeexaysa oon xataa naxariisba lahayn oo xataa qofkii isweydiinayo oo dhahayaay wartalow qofkanisoo qofkii maalintii waxa sheegayay ma adaa ismoodsiinayay ma khayaali bay ahayd yaana waqtiga idinka qaadine ninkii wuxuu yidhi waxaasaan jeclahay oo waxaasaan jeclahay oo waxaasaan jeclahay waxaasaan necbahay oo waxaasaan necbahay oo waxaasaan necbahay allahu akbar cuntada waxaasaan ka jeclahay hadalka qaabka in layla hadlaan ka jeclahay yaan u jeclahay hurdada qaabkaasaan u jeclahay waan khuuriyaa ogow hadda waan khuuriyaaye waa inaad sii ogaato inaan khuuriyo waan galgashaa markaan seexanaye ogow waa inaad sii galgashaa iska kay ilaali haddaba haddaad ii rabin wakaa haddaba ii sheeg waxaan jeclahay deriskayga waxaan jeclahay hebel iyo hebel saaxiibaday waxaan jeclahay inaan la socdo ama gurigayga yimaadaan hebel iyo hebel hebel iyo hebel ma jecli deriskaasi ma jecli maxaa yeelay waa nooca iyo waa nooca bimacnaa qofku waxa uu jecel yahay saa in layla hadlo saa in layla dhaqmo waxa in layga ilaaliyo qaabka in layga ilaaliyo saas bay dadkii hore nolosha ku soo dhaqeen adigu ma samaysay mise maadan samaynin warniyow maxaa kaa cadhaysiiya ii sheeg gabar yahay maxaad ka cadhootaa ii sheeg waan ku dhegaysan qalin iyo buug baan qaadan bal waxaad ii qortaa inta wax aadan jeclayn ee aad ka cadhoota ii sheeg anna waan kuu sheegi kadibna waxaad ii sheegtaa daawada aad jecesha inaan kugu daaweeyo markaasaan kuu sheegi hal tusaalaan idinka soo qaban aan mar walba sheego marar badanna aan ku soo celceliyo laakiin waa tusaale aniga ii dhadhamaya islaahayna reero badan baa ku dumay markii la fahmi waaye ninkii baa wuxuu yidhi haddaan cadhoodo waxaan jeclahay inaan baxo suuqa iyo masaajidada iska tago ragga iyo akhyaarta la soo haasaawo fiidkii aniga oo caadi ah baan kuu imaanoo qoslaya oo weliba ubax iyo shukulaato kuu wada saasuu ku yidhi ninkaa cudurkiisa iyo daawadiibuu kuu sheegay cudurkii wuu kuu sheegay maxaa iga xanaajiya wuu kuu sheegay laakiin daawadiina waa kuu sheegay ha dhowto hadduu xanaaqo adigu dhakhtar baa tahayee waa inaad dayso ha baxo ninkee daa ha soo nastee iska daa ballankuu kaa qaaday asagoo ku imaaday baad arki biidni illaah laakiin haddaan arrintaa laysku ogeyn oo ninkii markuu cadhooduun iridda ka baxo adiguna iridda intaad istaagto inay daawadii ma garanayso dhakhtar ma tihide oo horeyba oomada baranine aad kulleetiga ku dhegtoodooda hadda imaqashii waan ku furay maya tii labaadna ku dar waan ku furay
maya saddex ku dar waan ku furay albaabka ka soo xidh meeqa reer baa saa ku dumay keliya waxay ku sinnayd cudurkan daawadiisa in la helo cidda cadhoota mooyaan cidda kalena ay dhakhtar iyo digtoorkii caafimaadka noqoto bal gabadha aan tusaale u soo qaado haweenku way kala dabeecad duwan yihiin qaar baa markay cadhoodaan waxay jecel yihiin inay naqaska iska sii daayaan wax alla waxay doonaan inay ku hadlaan wax wanaagsan iyo wax xunba qaar baa isku dara kuwa alla ka baqayana calal aqal ama gacanta waxa ka tuurto ama weelasha ha jajabiso ama carruurta guri ha ku gurto waxay doontaba ha noqotee gacmahana way ka hadlaan qayb afkana way ka hadlaan hadday gabadhu ayna ninkeeda ku dhihin dhegayso war anugu haddaan cadhoodo oon xanaaqo sidaydaba miyir malihiyo waxa gacmahayga ku jirana waan tuuraa agtayda wixii taaganna waan ku qarbaxaa oo waan ku nafisaa laakiin daawadayda haddaad rabto iska dhegayso oo hayla hadlin ninkan waxaa la doonayaa xaaladdaa markay noqoto gabadhu ay xanaaqdo horta tv hadduu daarraa inuu damiyo kombyuutar hadduu daaraana inuu damiyo carruurtana fadhiga intuu isku geeyo inuu dhaho seeseexda oo beerka u seeseexda oo aamusnaada qolalka dariishadaana in loo soo xidho kadibna halkaa la wada dhegaysta gabadhii bal si fiican ha u nafistee markay nafisto ay dhammaysato ayadaa dhabannada idinka wada dhunkan carruurtii beerka u wada jiiftayna soo kicin ninkiina ayadaa jajafan oo dhihi xabiibi raalli noqo inanay waa daawaysay oo dhakhtar baad noqotay laakiin ka waran haddaadan arrintaa isku ogayn mar alle markay gabadhii qaylido oo ay buuqdaba ka waran haddaad dhahdo maxaad la qayliyi oo maanad igu qayliyi saddexdaadii baa ma ku siiyey reerkaa ma dumay mise ma dumin ficilan waa dumay gabdhaha qaar baa markay cadhoodaan inay qolka isku soo xidhaan jecel waxayna ku xidhan tahay waxay ku soo koreen marka hore hadday gabadhii isduuduubto ay duuniga iyo bustaa isku dado ka war haddaa u timaadood ka tuurto dado maxaad la jiiftaa edab ma qabtide reerkaa waa dumaya ujeeddada aan ka wataa waxaa weeye waa inaan maxaad cuntaa oo maxaad jeceshahay oo maxaad ka cadhootaa oo maxaa ku dejiya arrimahaas weeye arrimaha ay reeruhuna isku dhaafeen reerihii horena ay ku wanaagsanaayeen ninkii wuxuu yidhi gabagabada qisadu qiso aad u macaan oo qiimo badan weeyaane markaan wixii oo dhan gabadhii isdhaafsannay ayaa sanad markii aan joogoon gabadhii isqabnay oo wax idhiba aanan weligeed arkin aanan ku arkin weligay ayaan qof dumaroo waayeelaho gurigii joogta oogu imaaday maalin waxaan ku idhi maanta yaa noo jooga waxay tidhi hooyaday baa joogta kadibna waan u tegey salaan iyo bariidin kadib waraysi bay igula dhaqaaqday qodob gooni a baan kaga hadli doonaa sodohda waayahan laga dhawaaqaya laga calaacalayo qodob gooni a baan kaga hadli iyo qaabka ay gabdhaha iyo wiilasha loola dardaarmo qodob gooni a baan ka dhigi doonaa biidni illaahi jalla wacala waxay ku tidhi gabadhan iiga waran xaqaagii ma ku siisaa oo ma ku ateecdaa oo waxaad u soo guursatay ma ka heshay markaasuu u warramay asagiina wuxuu ku yidhi qof dumar oo ka qiimo badan waa khayru zawja qof dumaroo la guursado zawjada ugu fiican weeye ayuu yidhi dardaaran bay siiso waxay tidhi idhegaysay ku tidhi yaa abaa umaya haweenku hadday kaa ilhelaan oo ay ninka madaxa ka qabsadaan reerkaa waa dumaa ninkaana waa dulloobaa waxaad yeelaysaa hoggaanka reerka adigu hay soo maynan arkin hadda reerahenu say u dumeen waa markii ay qawaamadu meesha ka baxday
ama ninku ha iska bixiyo ama ha laga saaro, ama dawlad iyo qawaaniin iyo biya aan joogno ha ka saarto, ama haweenku ha ka saareen, ama ninku ha iska saare. goorta la waayay ninka dawrkiisa soo guryo badan yacni dawli kama dhicin sidii ceel dawli lagu tuurayo kale oo weliba koy baa lagu dayaabaa layidhi soo koykoydii weli lama la'a. af soomaali adag adaan ku hadlay raalli noqda. waxaan rabay gabadhaa way la dardaarantay dardaaran fiican. kadibna muxuu yidhi wallaahi buu yidhi gabadhii ayad ahayd 20 sanaan qabayo weligay waxaan dhibsada kuma arkin ilaa hal maalin oo weliba anigu aan ka gardaraa. baalka la yidhaha dabaqallooca ama caqrabka ama hangaralaha ayaa igu soo orday goor maqrib la addimayo. addinkii markaan maqlay intaana dilin baan masaajidka aaday. digsi intaan soo qaadaan ku gadiyey si markaan soo tukada aan u dilo. baalki intuu dhulka qotay oo ka soo baxay buu weeraray. markaasuu gabadhii qaniinay. taana anaa dulmigaa sameeyey buu leehay. saa daraaddeed su'aalaan isweydiinno qisadan aan ku gebagabayno. ma gabadha caqligeedaa maanta wax la miisaamo ah oo wax duruus laga dhiga ah, mise hooyada iyo tarbiyadeeda sodohda miyaa wax darsi laga dhiga ah, mise ninka iyo xigmaddiisa miyaa mudan in darsi laga dhigo? daalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa. kaasi waa fadli cid alla cidduu doonuu siiya. almuhim ayuha alikhwa an nadaca annuqaata cala alxuruuf. waa inaan warqadaha iyo miiska dushiisa waa inaan wax walba ku caddayno. wa khaasatan maca bidaayati alxayaati, nolosha bilowgeeda waa inuu mid walba midka kale uu barto waxa uu jecel yahay iyo waxa uusan jeclayn. waxaan doonayaa inaan qodobku waa inuu igu dheeraada ma doonaye, xalaqaadkana inay dheeraadaan ma doonayo biidnillaah. in kooban oo la fahmi karaan ka doonayaay. wixii intaa ka dambeeya ninka iyo xaaskiisu halkaa foodda aba isqabanayaan. dad badan baa markii loo sheega fooddaa la isqaban waxay leeyihin miyaa la isdagaalayaa? la isma dagaalayo, sunnadii rasuulkaa la fulinayaa calayhi salaatu wassalaam. fatwo min cindi, fatwaan caawidin siinayaa. labada aan horayba xataa isu qabanin hadda way isqaban karaan. maxaa yeele waa khayr. waayo waxaan ku qanacsanahay laba kastoo isqabtay habeen walba inay aroos yihiin, noloshooduna ay cusub tahay. saasaan anugu ku qanacsana. wa arjuu inay reero badanna ku qanacsan yihiin. bal ducadan kale ila dhegaysta. rasuulkeenna calayhi asalaatu wassalaam waxa uu leeyahay qofku idaa tasawaja axadukum imra'atan, yacni haddii lamaano la helo aw ishtaraa khaadiman, ama shaqaale uu soo iibsado, ama baabuur iyo wax lamida, falyaqul allaahumma innii as'aluka khayraha. u fiirso, gabadhi baad halkaa foodda ahaysaa, timuhu iskugu imaadaane laga sujuudo, ayaduna bartaasi kugu dheganta. bal arrintaa suuraysta si sunnada nabiga loo dabaqo. alla qurux badana, laba qofoo wax isla garanaysa. alla macaan badana, jawiga iyo xaaladda. alla mustaqbal fiicana. dadka labada arrimo sunnada nabiga dabaqa sal alla alay wasalam, jacaylka qalbigooda nabiga ay jecel yihiin calayhi salatu wasalaam, iyo siday u dabaqayaan sunnada rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam. gabadhi baa waxaad leedahay ama mid wuxuu hi ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda. allahu akbar. qof walba khayr iyo shar baa ku jira. gabadhan khayrkeeda ilaahay weydiiso. khayrkeeda inuu ilaahay ku tuso. hadalka kiisa macaan ee kuu dhadhamaya, ee reer kuu dhisaya, ee qalbiga jacaylka iyo xubbiga ku tallaalaya, kaas inuu ilaahay ka soo saaro haddee ilaahay weydiiso.
taa markaan weydiisan weyne maxaa dhacay waxaa dhacday hadal kasto reeraha qaarkood intay aamusan yihiin bay nabad yihiin haddayba hadlaan waxaa laga yaabaa hadal uu midkan kan kale u dhibsado inuuba ka soo baxo maca uu nebigu yiri sal ly slam alkalimatu tayibatu sadaqa war kelimada wanaagsan waa sadaqa waan ka hadli doonaa kelimaadka xubbiga iyo jacaylka la doonaya reerku inay ka dhigtaan manhajul xayaat inay ka dhigtaan waan tilmaami doonaa haddii alla raalli ka noqdo gabadhan khayrkeeda ilaahay weydiiso ficilka gabadhu ay samaynayso inuu ficilka inta khayrka ah ilaahay ku tuso gabadhu waa inay rabbi weydiisato ninkani khayr iyo shar baa ku dhex jiree inuu ilaahay khayrkiisa tuso hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo dhaqankiisa xoolihiisa qaraabadiisa awlaadu alla siin doono degaanka iyo guriga dariska iyo qaraabi iyo qoys safar iyo nagaadi aragtida keli a marka laga hadlayo ilaahayow gabadhan mar kastoon arko waxaan ku farxa iga tus ilaahayow hadalkeeda ii macaane oo aragtideeda ii macaane aragtideeda ii qurxi oo cuntadeeda inta wanaagsan i tuso ii macaane oo gogosheeda ii qurxiyo ii macaane socodkeeda ilaahu ii macaane socodkeeda oo keli ah kaftankeeda oo keli ah dabeecaddeeda oo keli ah ilmahay ii dhashay ilaahu kuwa u eg oo ii eg oon ku raaxaysto qurratu alcayn ilaahu iiga dhig wa khayra maa jabaltaha calayh dabeecada gabadhan aad ku dabeecaysay allah gudaha waxa ku jira qof walba gudaha waxbaa kaga jira ilaahayow gudaha waxa kaga jiro dabeecadana rabbiyow intaad kala soorto oo kala soocdo ood kala miirto inta miidda ah filtaraysan subaga ah malabka ah quruxda badan xariirta ah ilaahayow iiga soo saar inteenna ayaa ku ducaystay walaalayaal ducooyinka dariiqii intaan gara marnay ayaanu qufacaynaa cudurku meeshuu nagaga imaadayna ma naqaan tiibishadu meesha ay nagaga dhacdayna ma naqaano wa acuudu bika min sharriha ilaahayow sharkeedaan kaa magan galay gabadhan wiilkan labada qof mid walba shar buu leeyahay wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina waa kuu nabigu in badan iftitaaxiisuu ku bilowdaa naftaada shar baa ka buuxa marka sharti baad leedahay ilaahu iga qari oo qaanada iga geli oo ilaahu iga safri oo meelo daran ka tuur ilaahu sharkeeda bannaanka ha u soo saarin ilaahu xumaanteeda ha i tusin ilaahayow hadalkeeda kiisa xun ma awoodi kare maba qaadan kare qalbigayba dhaawacaysaaye jacaylkiibayba calwinaysaaye ilaahayow hadalka kiisa xun ha ka soo saarin ilaahu hadalka kiisa xun ha iga maqashiinin ilaahu hadalka kiisa xun ha i maqashiinin sidoo kale dabeecada ku dabeecaysane gudaha kaga jira allahyow iga ilaali gabadhuna waa sidoo kale ninkuna waa sidoo kale intaa markay dhacdo ninka iyo xaaskiisa gogol baa dhex marta waa wuxuu alla wax iskugu daray jirkoodii buu ilaahay xalaal ooga dhigay waataan sheegaynay kitaabka dhan ee 319 safxadood ka kooban wuxuu ka warramayaa qaabka iyo aadaabta iyo noocyada ninka iyo xaaskiisa ay gogosha wada dhex mari karto meeqa reerood baa ku dubay gogosha oon xaqeeda la siinin meeqa reer baa ciil hadda u dhimanaya gogosha oon xaqeeda la siinin waa in la fahmaa labadan qof gogosha xuquuqda ay iskugu leeyihiin waxaan rajaynayaa inaan mawduuc gooni ah aan xoogaa kaga tilmaami karo asagoo xishood iyo xayaa ku jiro biidnillaahi tabaaraka wa tacaala laakiin gogosha qaybta aan ka raba waxaa weeye intaan gogolba la gaadhin waana gebagabada maanta darsigeenna
duca kala qabso mayla socotaa horta tartiib tartiib say wax u kala horreeyeen si aan qoys wanaagsan iyo usra saciida aanu u noqonno say wax u kala horreeyeen waa inaanu ogaano mar alla markay ninkii iyo xaaskiisa gogoli tegayaan waan ka hadli doonaa insha allah gogosha iyo aadaabteeda iyo inaan laysku soo boodin oo muqadimaad iyo muqadimaatuljimaac iyo hordhaca iyo nafsiyaadka diyaarintooda iyo insha allah waa iyadoo qaab xishooda ay ku jirta baan oga hadli doonaay waxaan ka wadaa hadda galmada dhabta ah markii ay dhacayso wuxuu nabiguna baray calayhi asalaatu wassalaam ducadan soo socota in la akhristo tolow yaa akhrista ducadan yaa xusuusta ducadan yaa wakhti u hela ducadan tolow yaa yaqaana ducadan yaa xifisan ducadan yaase diyaar u ah caawa inuu ka bilaabo tolow ducadan macnaheedu waa maxay tolow ducadani maxaa jawhar ah oo ku dhex jira maxaase ay xijaab iyo xisni ay nooga noqonaysaa bal ila arka waa duca gaaban nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuuna bareen dhahno bismi illaah allahu akbar bismi illaah allahumma jannibna ashaytaan وجنب الشيطان ما رزقتنا يا الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نولش النذا أردن بانو عديس منهج كأنو كن نولان لهين أردن بانو عديس وناق أردن بانو عديس حمان أردن بانو قدكتي صلى الله عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلهي بان أرنتم أعسكنا يا أو أن بركك الرادين يا الله نعمة إلهي وي حلال حاس كاجي أو حلال كوة لبتشد أو ساعة كور أما دقائق كور حاران كلاها أيا هذا حلال السنة قضي هذا بقى انتظر بسن كان لقو بالله oo musqusha markii la gelayo bisinka lagu bilaabaa oo masjidka markii la gelayo bisinka lagu bilaabaa oo markii albaabka laga baxayo bisinka lagu bilaabaa markii galmo iyo xiriid gogol la sameynayana bisinka lagu bilaabaa ilaahay baan cuskan ilaahay baan u celinayaa mahad dhammaanteed tabaaraka wa tacaala allah ii naxariistay ee gabadhan bisil ii diyaariyey الله نحريسي سؤال كانتي ويلكم بربارك انت الذي إلهي دياري بسم الله اللهم يا الله هذا هو بري وتمن سيقول إلهي بضبري إلهي بضبري إلهي بضقعمها أتاقن الله نعم وصاه اللهم جنبنا الشيطان إلهي يو الشيطان كان نقفوقيه الله وما الشيطان بقى ماشي تشوفه الله وما الشيطان بقى نيجي جوجش يقول لك شيء فكرة نعم ولذلك بقى النبي قال له صلى الله عليه وسلم قف هدو سرير جوجله أو كذا نيسته مركو دونه يا إنه كسيحده وإنه هرجفاه محايا لي شيطان بقى لجيا بقى إنه أصلا مري أو كشيفه إذن sariiraheenna in badan oon ku seexanno shaytaanka oo dhinac kaga jiifada adigu dhinac ka seexataa soo saas maaha nacam shaytaanku waa kula joogaa xaaladda xidhiidh nin iyo xaas lamaano u dhex marayana waaba koobjoog waa inaad dhahdo allahayow jannibna shaytaan ilaahayow shaytaanka naga foge ilaahayow shaytaanka naga durki وجنب الشيء أنك لبضا نظن وجنب الشيطان ما رزقتنا واحد نقول أرزق دونتو أولاد أنا شهوة لبضا قف رحمك كل عيا الله يوسن شيطان وحكو درسني إلهي ونقا إلهي إنو الشيطان وحنقو درسنو تاس أو إيمان دونتا
ilmaha dhalanaya haddaad ducadan aqrisan weydo inuu shaytaan kula dhalay. wastafziz man istatacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika warajilika washaarikhum fi lamwaali waalawlaad. shaarikhum, shaytaanow la wadaagso, ku darso, awlaaddooda wax ku darso. ma garateen? carruurteenna aan ka cabaadayno haweenkii hore caqliga badnaa ee xigmadda badnaa waxay dhihi jireen markay cunug ay la yaabaan arkaan, waxay dhihi jireen bisinka kani markii horan malaha bisinka loo qabanin, ducadii baa laga iloobay ka wadaan oo shaytaan baa wax ku darsaday. war haan istaba qabanno oo aan istartiibinno oo xaaska xalaasha ee guriga lagugu keenay iyo ninka xalaasha ee guriga lagugu keenay shuruud iyo aadaab iyo nidaam ayay leedahay. meel walba ilaahay baa lagu caabudaa. qodobka ugu dambeeya xidhiirkaa dhex maraya waa ajir, waana cibaado. ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaana cibaadadaa siinaya, ajirkaa ka siinaya. idan habeenka ugu horreeya intaas aanu sheegnay haddii la maro, wixii ka dambeeya oo ka dambeeya waa xubbiga iyo jacaylkana gooni baan oga hadli doonaa. allah caza wajal ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu hanuun dhammaystiran oo kaamila iyo hidaayo quluubteenna iyo xididadeenna gasha inuuna siiyo, kuwa waddada nabi maxamed raaca calayhi salaatu wassalaam, wax walbana kaga dayda ay inuu naga dhiga baan ilaahay weydiisanayaa. qoysaskeenna inuu noo hagaajiyo, kuwa ku dhisanna uu ka dhigo sunnadii nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo manhajkii qur'aanka. innahu waliyu daalika waalqaadiru calayhi. ayuha alaxiba, inta aanu kaga kulmayno fadhiga kan xiga waxaan idinkaga tegayaa xifdiga ilaahay iyo ricaayada ilaahay iyo labada qof ee isqabta inay isu qoslaan, labada qof ee isqabta inay sunnada ilaaliyaan, ducadana akhristaan, isbartaan, oo mid walba mid kale uu caawa ka bilaabo warqad iyo qalin. intaad miiska sharaxda gabadhay ood qudaar soo gado, laba ubaxna dhinaca ka dhigto, biyo cad iyo kuwo guduudan iyo kuwo madowna aad soo dhigto, laba warqadood iyo laba qalinna aad soo dhigto, adiguna geedka hohobka, midhaha hohobka layidhahda yaqaaniintiinaan gacanta taaga inta taqaanaay, geedka hohobka la yidhaahdo aad iska soo dhigto xagga gacmaha iyo xagga lugaha iyo dharka aad qabto. taayib, halkaa odaygaaga intaad la soo fadhiista waxaad ku dhahdaa xabiibi, caawa waxaan doonayaa inaan isbarasho cusub, inkastoon 7 isu dhallay, haddana inaan isbarannaan rabaa, barasho wanaagsan. anigu waxaan jeclahay baan rabaa inaan qoro, waxaan necbahayna waxaan rabaa inaan qoro. laga bilaabo daqiiqadan aanu kala siixannana inuu gurigeennu saa uu ku noqdo qoys wanaagsan. arrintaasi waa codsi, waxaana jeclahay in la dhaqan geliyo. wajazaakum allahu khayran وبارك الله فيكم. أسرة سعيدة إذن رجينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.